arrintaas xiriirka kala yeelatay waa cambaaraynaynaa falkaa foosha xun oo halkaa ka dhacay. waxaan markaa dhibaato waa dhacday, waxaa dhibaato kala ah geeri baa dhacday, dhaawac baa dhacay, burbur baa dhacay hantiyeed, xadgudub baa dhacay deegaankii lagu soo xadgudbay galmudug. waxaa la doonayaa in haddii dhibaato dhacda caqligu inuu taliyo. waxaan ugu baaqaynaa dawladda maraykanka, dawladda federaalka, dawlad goboleedka galmudug inay sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ilaahay idmo inay u soo diraan guddi xaqiiqa raadina nimanka odhanaya shabaab baan dilnay, baabuurtii shabaabkana waa gubnay. arrintaas meesha ay ka sheegeen waxaan rabnaa inaan geyno. waxaa la rabaa xaqiiqada in la taabto. haddaan runta la taaban, hadda waxaa ka dambeeya runta waxa weeye waa been iyo dhibaato iyo is-afgarawaa iyo meel jinni iyo meelaan loo socon in la isla aado. waxaan leenahay ha la yimaado, cid kastoo timaadana waxaa lagu soo dhawaynayaa inay baarista wax ka gasho. reer galmudug madax bay leeyihiin, madaxda reer galmudug, madaxda shalay ka hadasha dawladda federaalka oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayno, iyo maamulka gobolkan iyo deegaankan iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxdiisa oo ciidankooda halkaan lagu laayay. waxaan ugu baaqaynaa in la soo diro guddi xaqiiqa raadin ah oo wixii beentana meesha ka saara, runtana sheega. markii runta laysla gaaro waxay imaanaysaa inay raalligelin bixiyaan, waxay imaanaysaa inay magdhow bixiyaan, waxay imaanaysaa khaladaadka maanta nala ku dilay inaan mar damba nala ku dilin. waxaan doonaynaa marka walaalaheenna reer puntland oo nala dariska ah oo 3 maalmood oo baroordiiqda loo taagnaa, ayaguna u taagnaa farax iyo raynrayn iyo damaashaad. waxaan leenahay walaalayaal, waxa la dilay waa walaalihiin, waxa la dilay waa wiilashiinni, waxa la dilay waxay ahayd kuwii berri ku kaalmayn lahaa qarankan iyo soomaaliyana wax u tari lahaa. marka waxaan leeyahay way khaldameen arrintaasi. xisaab bayse gelaysaa, xisaabta noogu dara. annagu markii puntland wax ka dhacaan jirkaana xanuuna, yacni waa la jirannaa. markii qarax ku dhaco, markay dhibaato ku dhacdo, markee waxaan ula jiranaynaa. annagiyo iyagu waa walaalaheen, waa soomaali, waa dad muslina, waa wada degannahay, waa isdhalnay. waxa weeye waa la isqabaa, daris baa leeyahay. war xaggee ku kala tegaynaa? soo inaan wixii xun ayaga ka dhowrno, ayaguna waxa xun naga dhowraan. sidaasoo caqligu tali ma war saasoo caqligu sheegi ma. walaalayaal, haddii
marka waxaan leeyahay waxaa aad iyo aad raggii waa dhintay waa dhaawacmay inta dhibatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana allaha buskaysiiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo dawladdii galmudug iyo dawladda federaalka iyo ciidamadii ay ka dhinteenna haddee waxa weeye samid iyo iimaan allah ka siiyo waxaan fiiri waxaa laba geeriyooda nimankii waa dhinteen ilaahay xilligu ay dhaban lahaayeen nafta ilaahay qaadila waa la qaaday wixii dhaawacmila waa dhaawacmeen waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo mar kale uga xunnahay oo mar saddexaad uga xunnahay maalintii saddexaad oo baroor diiq dadka iyagu bannaanka u taagan yahay inay ku celiyeen idaacadaha maalintii saddexaad ay ku celiyeen maanta inay yidhaahdeen shabaab baan dilnay weli inay ku adkaysanayaan shabaab baan dilnay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun war waxa nuucaasi war caqlixumada nuucaasi war waxaan rabnaa war dagaal ma rabno war in cid la dilo ma rabno war nabad baan rabnaa war deriska iyaga nabad baan u rabnaa dalalka maraykan oo annagu aan ka sugaynay inuu dalkaan gacan siiyo oo dalkaan wax la qabto oo shabaab gacan ka siiyo oo dhaqaalo ka siiyo oo dibudhus ka siiyo oo tabantaabo dawladeed laga sugayey hadday laga sugi mayn waxa meesha ka dhacay laga sugi mayn maalintii saddexaad inay ku celiyaan nimankii ciidamada ahaa ee maraykanku sax baan ahayn waa dilnay weli waa shabaab hadda galabta markii dhaawixii la geeyo wiilashii milatariga u qornaa oo hadda diyaaraddu markay xamar ka dejiso hadda ha la qabto ayaga kuwaas warkaasi ha la qabto ayagaa marka shabaabe garoonkaa ka afduubaan garoonka xamar waa in laga afduubaa haddii kale shabaab ma ahayn marka wixii ugu dambayntii mudanayaal marweyn anigoo idiin mahad celinayo walaalayaal dadaalka iyo muxuuha dulqaadka iyo qorraxda saddexda maalmood inaan meel la furin la ganacsan la seexan bannaanka la dhooban yahay anoo idinkaga mahad celinaya inaad xuquuqdiina difaacanaysaan haddana mid baan idin leeyahay waxaan idin leeyahay tala waa dambaysaa waxaan doonayaa in la isxakameeyo in reer galmudug oo arrinta dhulka la dhigo arrinta wadaxaajood baan ku gelaynaa wadahadal baa la gelayaa cidi ma gelaysa gaarihi barqaa la xaajoonayaa waxa weeye arrintaas ayada waxaan u soo jeedinayaa in la deganaado culummadii iyo gabdhihii iyo rag iyo dhallinyarada soo baxday waxaan war maalin keliya wax walba lama qaban karayo waxaan idin soo jeedinayaa in la deganaado anoo deganaantaas raacaya ka tilmaan qaadanaya golaha wasiirada dawladda federaalka shalay go-aankoodii oo sidaasna muujinayay dawladda goboleedka iyo madaxweyne cabdikariin iyo golihiisa wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenkii oo ayaguna sidaas soo jeediyey waxaan anna ku kabahayaa deganaan annaga xaggayaga wixii dhicilaa uga dhaceen laakiin arrintaas aan annaga ha laysxakameeyaan leeyahay oo yaan caadifadda iyo xanuunku yuusan naga tag badan aan siceshano mar kale waxaan leeyahay culummada al-sunna wal-jamaaca oo maanta halkaa banaanbaxan hormoodka ah